Bismillah, Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteena, waa walaashiin Safiya Xubiyo ee soo laabatay oo idin wada muuqaalkii oo dhammaystiran. Muuqaalka baartaban haddaad fiirsatad ogaan doontaa wuxuu u socdo iyo maxay ahayd wuxuu ka sheekeynayo. Marka adigoo baartaban fiirsanin ma ogaan kartid. Marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada. Ugu horreyn channelka haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar, like-tana noo saar, dhiirigelin bay noo tahay. Inshallah haddaad intaas sameyso waad mahadsan tahay. Saan hore idinku sheegay muuqaalka baartaban markaad fiirsatid ogaan doontaa wuxuu ka socdo iyo wuxuu ka turjumaba intaba. Waa kaasaa marka saas ula socda marka. Marka sheekadani waxay noo mareysay gabadhii ugu dambeyn inay guriga ka baxsatay. Markay ka baxsatay ayadoo socdo meel ay mareysa xaafadaha ka baxsan baa waxaa arkay ayeeyada guriga joogto. Ayeeyadeed nin is yaqaanaan baa meel ku arkay. Wuxuu yiri gabadhan intee u socotaa xilligan. Marka wuxuu soo wacay ayeeyadeed marka qaraabo oo waxay ahaayeen meel koraata aan si fiican isku aqoonin gabadha, laakiin uu yaqaano kor ahaan inay gabadha gurigaas ay kasoo jeedo oo ogyahay, laakiin iyada qofku yahay ninka ma oga. Marka ayeeyadeed uu soo wacay marka wuxuu yiri gabadhan xilligan ay soo baxday ma la ogyahay guriga. Wuxuu yiri gabadheedu way joogtaa. Maxaa gabadha waateen? Waa gabadhi ayeeyada u tahay oo wiilkaagii dhalay. Markaas saan guriga markay saas ay u fiirisay waxba ma joogo guriga. Markaas ayeeyadii way wareertay. Dadkii dhan ay ogeysiisay waxay tiri gabadheedii way maqan tahay camal. Dadkii way isku imaadeen. Ugu dambeyn gabadhii guriga waa la keenay. Eedadeed bay zaid ugu qaylisay. Waxay tiri sababta guriga ugu baxsatay ma ii sheegi kartaa? Marka gabadhii waxay tiri eedo iga raali noqo. Ani guriga inaan ka baxsado maanan rabin, laakiin aniga waan weynaaday, naag weynaan noqday. Intaan kadib inaad idinka maxaan ku raadaa garab isiisiin looma baahna. Marka saas darteeda baan guriga ugu baxsaday. Eedo wax kale ma ahan. Waxaan rabay qof isku filan oo shaqaysata inaan noqdo. Marka ma dareensiinayso guriga ilmaha jooga inay dhib ku qabto. Marka saas bay tiri. Eedadii waxay tiri haddaad weynaad intaan odhanaa ila joogto. Eedo waa weynaaday. Waxaan u baahnaa inaan qabsado. Haddaad dhahdo macnaa kaa diidi lahaa gabadheeda sababta u dhuumanaysa maxaa waa eedo waa iga diidi lahayd. Saas darteed cabsanaya aan guriga ugu baxsaday haddana ka raali noqo. Marka eedadii hayay tiri ninkeedii bay u tagtay la tashatay. Gabadhan hadda way baxsatay. Amaanay nagu tahay hooyadii aabaheeda ma noola. Marka waa inaan nin u raadinaa, nin fiican waa inaad soo raadisaa bay tiri eedadii. Marka adeerkii wuu baxay hooyadiis u tagay. Hooyo maxaa ka leedahay halkan way tiri. Hooyo waxay tiri marka ma xuma haddii ayeeyada oo gabadha ayeeyadu tahay waa marka hooyada. Hooyadu waxay tiri marka wiilkayga haddaaba gabar wiil fiican u helaysid marka loo raadiyo gabar guri u joogta gurigeedayna ku qurux badan tahay markasta. Marka adeerkii waxayuu yiri marka asoo la raadinaa wiil maxaan ku iraadaa oo meelahaas ka imaaday qurbaha ay meelahaas ka imaaday baa aroos ku kulmeen. Arooskii markay saas wiilku ugu kulmeen adeerkii wiilkii marka magaalku uu ku cusbaa wuxuu yiri aniga waxaan u baahnaa gabar akhlaaq leh, dhaqan iyo diin wanaagsan haysato. Singalaan ahay Soomaali waan ku cusbaa hadda leen imaaday. Marka waxaan rabay inaan gabar aad ii raadisid. Marka anigay adigana hadda isku maanan dambeenin. Anigana meeshan waan ku cusbaa. Marka gabaraan u baahnaa oo fiican haddaad taqaano ila soo xiriir. Marka guuraan rabay inaan sameeyo. Wiilkii marka adeerku wuxuu yiri aniga gabadheeda seebay u yiri adiga gabar ma dhashay uu yiri marka aawi gabadheeda guriga joogtaa waa gabar fiican. Intaad adiga sheegays in ka fiican bay noqon kartaa xitaa uu yiri. Wiilkii marka wuxuu yiri waa bishaaro haddaad adiga gabar dhashay ay tahay meel dheer iga ma jirto waa yahay waan soo doonanayaa waa yahay gabadha la tus. Gabadhii waa la tusay. Gabadhii adeerkeed wuxuu yiri ninkan aan ku keenay adeer ducadeeda qaado gurigaagana guri khayr qaba Allah kaaga dhigay guurkaaga waxay ducadeeda qaalo waan ku duceynayaa ee guurso adeer. Wiilkan waa wiil wanaagsan. Gabadhii gabar baariyada afka qof kuma soo celin jir. Maxay tiri waayay adeer waxaad ii dooqdo waxba kama qabi bay tiri maadaama awalkii hore gurigay ugu baxaysay ciyaalka dhibtooda, laakiin gabadha gabar xun maysan ahayn gabar fiican ay ahayd maasha Allah.
maadaama ay dooqdo waxba kama qabin bay tiri. Wiilkii marka wada kulma baa la yiri, way isfahmeen. Kadib aroos baa loo dhigay, aroos qurux badan, adduunka oo dhan laga wada yaabay ayaa loo dhigay. Maasha Allah, gabadhii gabar faraxsan, boqortooyad camal baa loo arooskeeda u noqday. Sida boqortooyada camal baa loo aqal geliyay. Marka gabadhii saas baa lagu guursaday. Hadda waxay ku nooshahay nolol aad u qurux badan, waxba kama maqna adduunka. Nin qurux badan, jacayl, wax kasta oo sii nafsidiisa xitaa uu u huri karo bay heshay. Wiilka ay heshay waa wiil wanaagsan oona fiican, dhaqankiisa wixiisoo dhan fiican. Gabadhiina waa gabar wanaagsan. Marka ugu dambeyn sheekadan waxaan ka fahnay ducada waalidka inay fiican tahay. Waalidka gabdhaha sanadkan jirana dooq waxaasay dhahaan. Marka waalidka wuxuu dooqay wax ka fiican ma lahan. Walow ay hooyada dhib ay ku marto midda, laakiin gabadhi maysan sameynin. Waalidiinta soo korsada bay docdooda iyo waxooda qaadatay. Marka anagana hadda waa inaan istuusanaa gabdhaha hadda aan jirna haddaan nahay. Markasta waxaan leenahay anuu ninkan waa jeclaada, hooyo ugu dir. Haddaad diidana waa la baxsanaysaa. Waadna aragteen gabar la baxsaday oo guri si nidaam ugu dhaqanto way yartahay. Wax farq ku tiris ah waaye. Marka waxaa wanaagsan in hooyadaada aadan dhibin iyo aabahaaga docdooda qaadatid. Qisadan haddaad dhegeysatin waxaan rajeynaa fikirkaaga inuu wax iska bedelo. Marka wiilal iyo gabdho waxaan idinkula talin lahaa noqda kuwa baariyaal ah, saa caruurta mustaqbalka dhali doontaan u noqdaan kuwa wanaagsan dalkooda iyo diintooda, waalidiintooda, qof waliba oo ka hor imaada uu noqdo qof baari ah oo wanaagsan. Marka idinka noqda, idinka markaa wanaagsanaata, anaga waxaan dhalnay wixii anaga jirkeena kasoo go'o, wixii noo dhow xitaa way wanaagsanaanayaan. Waayo saameynta wanaaga aaday u weyn tahay, wax la dhayalsada ma aha. Hal wanaag waa samaysada intaasoo dhan qofku ku jeclaan karta. Marka wanaaga hala badiyo. Qisadeeni maantana halkaasay kusoo afjaran tahay. Haddaad ka faa'iideen kumatiga noogu soo qora wax wanaagsan. Waxaan idin leenahay intaan inka qurux badan buu idin soo wadnaa qisooyin qurux badan. Marka waxaan idin leenahay sidaas iyo amaana Allah.